السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامجكي تحانها أها التراساونكا قيبتي أفراد. قيبتنا أفراد حانو والدونا حانونكا لو يقانو لفرسيروسيس وهيركا ugu dambeeya ee cudurada ku dhaca beerka ee soo daaha kuwaas oo ku bilowda burbur iyo isbedel ku dhaca unugyada beerka kadibna waxa ka dhasha kuuskuusyo ka samaysan unugyada beerka oo dhintay. waxyaabaha keena dhimashada unugyada beerka 90% waxa ka mas'uula cabida alkoholada. qofka haduu in badan badsado cabitaanka alkoholada ama cabida alkoholada cabitaan yana dhihin hadii uu la qabatimo alkoholada sideedaba caafimaadka ma wanaagsana laakiin qofka haduu iska badiyo waxay khatar gelinaysaa beerkiisa inuu sii noolaado. sidoo kale dadka horey u qabay cagaarshowga noociisa loo yaqaan hepatitis B iyo waliba hepatitis C keesaska qaarkood waxay keenaan difaaca qofka oo si qaldan u burburiya unugyada beerka. burburka unugyada beerka marka la adeegsanayo qalabka ultrasound ama kombiyuutarka uurku jirta waxaa lagu arkayaa biyo ku jira xubka sare ee caloosha waxaana loo yaqaanaa afka qalaad ascites. hadaba qofka qaba xanuunka liver cirrhosis waxaa lagu garan karaa calaamad ahaan in qaybta dambe ee beerka oo weynaata, beeryarada oo weynaata iyo waliba xubka sare ee caloosha oo ay biyo galaan. 80% keesaska qaba burburka beerka ee liver cirrhosis beeryaradu way ka weyn tahay 12 cm marka loo cabiro dhererka. bukaanada qaba weynaanshaha beeryarada waxay aad uga daran yihiin kuwa qaba cagaarshowga soo daahay. weynaanshaha beeryaradu waxay ka badan tahay 15 cm marka beeryaradu weynaato ee afka qalaad lagu dhaho splenomegaly in ka badan 18 cm ilaa 20 cm waxay sababtaa cudurro ku dhaca dhiiga sida xinjirowga dhiiga oo xumaada waxaan loo yaqaano thrombocytopenia iyo waliba unugyada cadcad oo yaraada waxa loo yaqaano leukopenia iyo unugyada cascas oo hoos u dhaca oo loo yaqaan anemia ama qofka inuu dhiiga ku yaraado HB-giisi oo hoos u dhaco hemoglobintiisi iyo waliba ascites oo ah xubka sare ee caloosha oo ay biyo galaan. waliba biyahaasi waa mid kombiyuutarkan lagu arki karo qofkan muuqaal ahaan isagoo xaggaas istaagsan la arki karo waayo biyaha zaa'id ay u badan yihiin ilaa qofka calooshiis ay aad u weynaato oo labada dhinac ay soo bararaan caloosha ay aad u soo biyo aad ay uga muuqdaan oo biyahaasna taabashana waa lagu ogaan karaa hadii dhakhtarku uu ku sameeyo baaritaan toos ah iyo baaritaan kombiyuutar ba waa lagu ogaan karaa qofka markuu qabo ascites ama xubka sare ee caloosha marka ay biyo galaan. ultrasoundka waa aaladda ugu muhiimsan ee lagu ogaado inay biyo ku jiraan xubka sare ee caloosha marka laga soo tago baaritaanka tooska ah. biyahaasna waxaa inta badan lagu arkaa bukaanka qaba burburka beerka ee loo yaqaan liver cirrhosis decompensated cirrhosis liver cirrhosis. ultrasoundka waxaa lagu ogaadaa volume of ascites mugga biyaha ku jira xubka yani halkan weey meesha muhiimada ah oo ultrasound kombiyuutarka ultrasoundka ah uu naga sii saacidayo ama naga caawin karo inaan ogaano biyahaas caloosha ku jira muggooda inta ay leeg yihiin iyo in lagu qiimeeyo xilliga uu qaadanayo daawooyinkaadi badiyaasha ah ee loo yaqaan diuretic therapy. iyo ascitic volume mugga biyaha ku jira xubka sare ee caloosha waxaa loo qaybiyaa 4 nooc. biyaha ku jira caloosha xubka sare waxaa loo qaybiyaa 4 nooc. qaybta koobaad inta ugu yar mugga biyaha ku jira xubka sare ee caloosha yani inta ugu yar mug ahaan waa waxay gaarsiisan tahay 1 ilaa 2 kg. qaybta labaad mugga biyaha yar ee ku jira xubka sare ee caloosha waxay gaaraan 3 ilaa 4 kilogram. qaybta saddexaad mugga biyaha dhexe ee gala xubka sare ee caloosha wuxuu gaaraa waxa loo yaqaan moderate ascites oo uu gaarayo muggiisu 7 ilaa 8 kilogram. biyaha ugu badan ee gala xubka sare ee caloosha waxay gaaraan 10 ilaa 15 kilogram. muuqaalka halkan ay ku tusi doono waa muuqaal qof qaba xanuunka liver cirrhosis
biyaha ku jira xuubka sare ee caloosha wuxuu u muuqdaa sawir madmadow ayaa ku jira xoogaa, laakiin wuxuu ina tusayaa qaybta ugu badan ee ku jirta biyaha calooshiisa in ay gaarsiisan tahay muggiisa 10 ilaa 15 kilogram. insha Allah maanta casharkeeni afraad ee ku saabsanaa barashada ultrasoundka ama taxanihii ultrasoundka halkaas buu noogu egyahay. insha Allah waa inoo qaybta dambe ee xigta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.